waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo safafka salaada in la kala fogaado ma bidca miyay noqonaysaa? maalmahan covid-19 waxaa soo kordhay in safafka masaajidada salaadaha la kala fogaado wadamo badan ilaa masjidka xaramka iyo masjidu nabawiya. marka arinta sheekh ma caadiba mise waa bidco guriga in lagu tukado iyo in masaajida la aadaay? arintaa daraaddeed keebaa roon? waxaanse maqlay wadaado odhanaya safafka in la isku dhowaadaay salaada muhiim uma aha, micnaha salaadu way ansixi karaysaa iyadoo oon la isu dhowaanin. sheekh arintaas maxaad ka leedahay? jazaak allahu khayr. بسم الله سائلكو waxyaabo badan buu isku qulbay oo isdhex dhigay marka haddaan soo koobno waxaa weeye safka in la toosiyo oo la simo oo la isku dhego garabka garabka la saaro gumada la saaro safka la toosiyo waa waajib min waajibaati salaati aljamaaca wey. in laga tago hawshaas iyadoo la awoodi karana waa kabiira min alkabaa'ir sida raajixa ah. safka toosintiisa iyo simidiisa waciid badan baa ka yaala. nabigu wuxuu yihi safka sima haddaad yeeli weydaan ilaahay qulubtiinu isku dhufanaya, khilaaf baa imanaya, rabbi waa idinku ciqaabaya. taswiyatu sufuufi waa min tamaami salaa, waa min iqaamati salaa, nabigay ka suganta calayhi salaatu wasalaam. marka safka in la simo oo la toosiyo oo la buuxiyo waa waajib min waajibaati salaati aljamaaca. in la yeeli waayana waa kabiira min alkabaa'ir sida raajix min xaytu daliil. intaa waa la fahmay. safka hore oo meel ka bannaan tahay adoo geli kara haddaad ku daba tukata keligaana salaadaadi waa baatila cala annas. safkii hore ooy furjo ka bannaan tahay aada buuxin karto ood geli karto, haddaad bannaan istaagto ood keligaa saf ku tukato laa salaata limunfaridin khalfa saf. nabigu soo celin buu amray, salaaddii waa baatilo. sidaasay shareecadeenu safka iyo jamaacada u ilaalisay. waxaa ku yimid dhibka hadda taagan ee muslimiintu hadda ay la kulmeen ee coronavirus uu ku keenay ayaa ku yimid. masaajiddu hadday furan tahay oo naloo furay waa in si jamaaca loogu tukado, safka la simo, la buuxiyo, midba kuu ka horeeya la gengimaa la rabaa. safka hore meel ka bannaan haddaad salaad gasho salaada kaa asix mayso. guriga ama aad ama gooni u tuko oo masaajidka gees kaga tukada ay kuu taallaa. ninkii marka asagu diidan safkii in shimiq laga dhigo la simo ee cabsanaya inuu meesha uu ka qaado xanuun falkii la waayey, gurigiisa ha ku tukado ama geesi iyo ha u istaago masaajidka gees ha kaga tukado. masaajidkii in la furo xaggana nin walba sidii hal la sibra baxdo kaajaysa uu meel istaago, salaad nabi maxamed iyo saxaaba yaqaanaan ma aha. qaabkaas in loo tukado sharciyan ma bannaano. in la kala fogaado 1 mitir iyo bar 2 mitir walba uu meeshu doona istaago, kaa jamaaca ma aha, salaatul jamaaca ma aha. salaadu ma asaxaysaa mise ma asaxayso waa laba kala masalo. laakiin waxaad fahantaa taasi salaatul jamaaca ma aha. adoo keligaa tukaday ka dhigan tahay. ma bidca mise bidca ma aha? aniga waxaan arkaa inay bidca tahay. maxaa yeele bidcadu waxay ahayd laba qeyd bay lahayd. fal walboo loo sameeyo ilaahay u dhowaasho muqtadihiisana uu jiray xilligii salaf الصaalix, maanic u diidana uusan jirin, maxaan leenahay fahuwa bidcatun. daacuunku iyo wabuhu xilligii salafku dhacay, xilliga saxaabadu dhacay, masaajid bay lahaayeen, xilligii taabiciintu dhacay. qaabkaa in loo tukado kama sugno saxaabiya taabiciin iyo nabi maxamed. marka waa hay-o cusub oo bedelaysa wadcigii salaatu اljamaaca. tagyiir awdaacu shariica lama ogolo, bal lawaasim adag baa ka dhalanayso hadda aanan sheegayn. masaajiddu ha furaato. ninki haddii la waayo jamaaco isku xidhan oo sidii nabi maxamed yaqaanay ahna masaajidka fura nin walba goonaha ugu tukado. guri lagu tukan maayo. masaajidka hadduu inoo furan yahay guri lagu tukan maayo. maxaa yeelay salaada fariidada maxaa u fadli badan in masaajidka la aado. sunnooyinkaynu guriga la aadaynaa. haddii buyuudda ilaahay naloo furay salaadaha faradka ee 5 ah masaajidaynu ku tukanaynaa. laakiin sidan loo hadda meelaha qaarkood looga tukado salaatul jamaaca ma aha. wadaado horaanba jamaacada iyo tumaaniinada iyo safka iyo muran ka qabay oon aahaarta iyo axaadiista ku fiicinayn warkood wax ka soo qaad ma laha. amaa sunnada nabi maxamed iyo saxaabo iyo taabiciin warkoodu halkaas weeye. qaabka in loo tukado ma bannaano. salaatul jamaacana ma aha. salaaduna
furaada waa ku asaxaysaa masaajidka gudihiisa wallahu subxaanaه wa tacaala aclam